intii ila socotay social media ayaa i garanaysa ya wax iga qaylo badnaa ya halkii hore qooq ayaa iga qaylisiin jiray nin walba oo Soomaaliyeed oo single ah oo raba inuu guursado fadlan ha guursan naag media ku jirta ama caanka ah amaba ku fakarayso guurso gabar gurigeeda joogta oo dhaqan leh oo Ilaahay taqaana oo xitaa hadii aad kala tagtaan aan ku soo fadhiisanay social media oo waxaan oo kale aan ku dhahayn gabadhan Amira la yiraahdaa nin baa qabi jiray aadan la yiraahdo waa ay kala tageen hadda waa ay ishayaan intay soo fadhiisatay waxay leedahay aadan ima wasi jirin ama ima dab saari jirin qof muslima ya afkiisa waxaas ma soo qabtaa kow ma soo qabto number 2 qofka gooshiis ka sheekeeya qofka gooshiis ka sheekeeya cara Ilaahay baaba ku dhacdaba waa dambi weyn marka ninka ay leedahay ima dab saari jirin ya waa ninka ay dhihi jirtay weligeed ninka fiican ma arag anyway ragga Soomaaliyeed baan la hadlayaa aniga dumarka Soomaaliyeed ma wada xuma laakiin waxa media ku jiro dhan wax wanaagsan iska yar waa 1% ama 2 waa number yar badi waa tan oo kale wallahi waa tan oo kale bal hadda waxay ku hadlaysaa fiiri waxay leedahay ninkan ima dab saari jirin shalay markaad isla joogteen maxaa noogu sheegi weysay oo aad u dhihi weysay ninkan naf badan ma leh shalay maxaa u dhihi weysay anyway gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh aniga kama hadlaayo laakiin waxa noocaan oo kale aan ka hadlayaa ma garatay ragga Soomaaliyeedna taan siinaya fadlan hadaad guursanayso gabar aan social media shaqo ku lahayn oo xitaa aan ku fakirin guurso nolol qurux badan aan ku noolaanaysaa laakiin waxaan agagaskaa oo kale hadaa wax ku dirsato saana ku dambeey doonto aadanow qaladka adiga iska leh ayada ma balahaba markaaga hore aan meel qaldan ka kaluumaysatay oo ku salaama my brother